toddobaadkan si weyn waxaa loo hadalayaa oo cirka isku shareertay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa la sheegay inay ka cadhootay shirka sahaminta shidaalka oo lagu soo bandhigay magaalada London oo la sheegay inay Soomaaliya halkaasi ku soo bandhigtay dhulbadeedka lagu murasan yahay ee u dhaxeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya. haddaba arrintan ayay si weyn u hadalhayaan dhammaan dadka Soomaalidu meel kasta ay joogaan waxayna si weyn ugu lafagurayaan baraha bulshada iyo waliba warbaahinta. haddaba halkani waa Hargeysa maxay la tahay iyagana anagu runtii waan ku soo horjeednaa dalka shaarkana Soomaaliya ee walaalahaya in dadkooda iyo xuduudkooda iyo badooda la goosto saadiradeed waxaan u aragnaa duulimaad ku salaysan Soomaali sidii loogu soo duuli lahaa marka aad iyo aad baan wayaan anagu ugu xunaadaan bulshada reer Soomaaliland nahay maanta haddaan tago shidaalka la sheegayo inuu shaqo tago taanu siyaasi meeyo hore laga siinay shaqada meeshii wala khayraad ka soo baxana weyn walaal dadkana waa dad Soomaali iyaga qaldan oo inoo aqoonsan waayay haddayna aqoonsanaana hiilka weyn u kordhinay runtii imika Kenya halka sheeganaysa dee Muqdisho meesha waxa waa 50 kilomitir bay Muqdisho jirtaa dhinaca badda marka runtii wax imika soo cusbaana maaha Soomaaliyana imika ayagu is ogaadeen mar hore la qabsaday marka kaliya quraatay dadka quraatay ku kalsoonaa ee maanta difaaci lahaa waxa weey Soomaaliland wada ogtahay maanta farmaajo de wax walba uu sameeyay go'doomin nolol ahaan marka maanta inaka wax teelo inoo dhigteen ma jirto Soomaali waxa dad magac loo Afrika dad ka wada dhigtay badankeeda iyadoo liidato Afrika wada gumaysiga silcayso ayaanu Soomaali haddaan noo dagaalami jiray maanta nasiibka darrada nagu dhacday haday nala eeganayso Kenya waxa weeye raggii uu joogay caruurtoodii halkan baan ka bilaab midnimana waan sameeynaa markay gaadho sida leenka iyagana goonu noo ahaanaya taana waan ka dagaalmayna marka wax weeyaan Kenya waxba niyadayay galin Soomaali maanta way jilcisanta haddii qolo la weeraro shanta Soomaalidu qoladii la weeraro qolada kale waa u hiilinaysaa si kastoo kala go'an yihiin jirka madow bay ku dagaalamayaan jirka madow iyo ciida ayay ku dagaalamayaan markaan ka hadlo Kenya afar iyo 20 saacadood dagaal wax igama haysan karto runta markaa doonaysid wallahi igama haysan karto walaana beel sheegin adoon ka naaxday baa joogta meesha kontan ciyaal hadaan diro kontan ciyaal ka saaray magaalada dad Soomaaliland ka soo jeedaan nahay dal baan nahay madax banaana ku dhawaaqaan nahay marka wax weyn dal isku filan baan nahay xuduule hase ahaatee waxa labo la kala saaraa waxa weeyaan dad Soomaaliya baan jinsiga diin iyo waxaan wadaagnaa dhaqan iyo waxaan wadaagnaa wax weeyaan islaamnimo waxaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa qofka Soomaaliga runtii dhibaatada la soo gaarsiiyo umad dul qaadan karno maantana cadow kasta oo qof Soomaaliya dawladdu doona Djibouti ha joogo waxa weeyaan Soomaaliya ha joogo Somaliland ha joogo qofka Soomaaliya kilka shanaaga joogo qofka Soomaaliya waxa yar la soo gaarsiiya umad dul qaadan karno Muqdisho diimka ama xamar ay Kenya damacdan ay soo farageliso ama soo wararto dee barta sano ka baxana waan la dagaalamana khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxaan u arkaa mid ay Kenya ay ku boobeyso oo damac ka hayo dhul ay digto Soomaaliya marka waa mid qalad ah maxaan ku raday de halkan waxa ka muuqda in burburka Soomaaliya laga faa'iideysanayo oo dhulkeedii la qaadanayo taasna mid aan ku taageersanay maaha haddaanu Soomaaliland nahay de dalhaan waanu kala madax bannaanahay laakiin se diirahaan dhul Soomaaliyeed weeye wax de Soomaaliya la yeelana guud ahaan de wax qof Soomaaliya la yeelay Cabdi Shakuur Saleebaan telefishinka Horyaal Hargeysa